eray waxsan liyo waanadii culimaada waxyaruun dhagayso aadamahan kala wareegiyo ku jira wadiyada wardigiyo tasbiixdiyo wuxuu ka gunuudo weedhaha culimada wanaagiyo samahan lagu bashay wargaysyada wacdigeenna diintiyo ummadii waanadane aan wada weelayno weedhaha culimada sida waqalka roobkiyo ku warabsha diinte u fura wareegyada dhiigo aan wada weelayno weedhaha culimada eray waxsan liyo waanadii culimada waxyaruun dhagayso aadamahan kala wareegiyo ku jira wadiyada wardigiyo tasbiixdiyo wuxuu ka gunuudo weedhaha culimada wanaagiyo samaa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. إلهي سبحانه وتعالى وحين كبرينا إريقا كلمة عدة أورانا يسائية كأورانا يبقى الله إنكو أنفعه في الحياة وبعد الممات. نيدينا أن إلهي نكدي ومد خالص أو صافئة. اللهم صل على محمد. كلمة دي نحكو سابسانتا هاي حقوق دا لبدا قف لما أنها إسقبة زوجك إيا زوجة حقوق دودة إن شاء الله تعالى. إلهي وحن ويدسنا سوابك إيا صحيحين وافتشيه وحين كقاعد نقض بدا بإنه إن شاء الله تتابن دونا حق waxaan ku horeysiin doonaa insha Allah ta'ala zawjada iyo xaaska ninkeedu uu ku leeyahay. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu tilmaamay ninku inuu qawaam yahay oo micnaheedu yahay inuu yahay qofka u taagnida badan umuuraha iyo arrinka qoyska iyo ooridiisa iyo ubadkiisa iyo aqalka. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الله سبحانه وتعالى وحو تلمامي رقو إني يهين قوام وأتاقني بدن يهين قويسك ننكو أوريدي سي أقل كيسة وحيابها إلهي كفضلين وحوية تفضيل كأودحية يفضلات دا لبدا قف إلهي كفضلي ودي قف دمرة يو نين مركيهين إلهي سبحانه وتعالى دهبين كايد الشين ayay abuurtoodu kala duwanto labiyo dhadig bay kala yihiin umuuraha iyo waajibaadkaas uu ninkaas u qumayo iyo masaariiftan uu bixinayo. dumarka saalixaadka wan wanaagsan ee Ilaahay ateeca ragooda ateeco wanaaga ku ateeca oo naftooda iyo maalka iyo aqalka iyo ubadkaba ninka markuu maqan yahay xafida. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu kala dardaarmay ilaalinteeda iyo xafiditaankeeda. amaantaasay marka leeyihiin dumarku wan wanaagsan ee qaanitaadka ah ragguna waajibaadkaasuu leeyahay xaqu saas u kala duwan yahay qof waliba xaqiisu leeyahay. xuquuqda ka dhaxaysaana waa xuquuq mutabaadala isdhaafsi ku salaysan oo haddii ninku uu tiisa ka soo baxo oo gabadhu ay teeda dayacdo waa inaanu odhan gabadhu hadday teedii dayacday anna tayada waan dayacaya. xuquuq mudan qof waliba inuu sida ay tahay uga soo baxo. رسولك صلى الله عليه وسلم حديث صحيح البخاري أبو داود غير كتب بيصوصارين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. رسولك صلى الله عليه وسلم وحوت المامة كل جن حل بيدين سارا وحل بين باتهين ننكون حل باكسا وانا السؤال يقف لي بحلك إلى هاي ساري ننكون حل باكسا قويس كيسا وانا لويدين يا أبو النبي صلى الله عليه وسلم. رسولك صلى الله عليه وسلم وحوت المامة حديث كترمذي وغير كيبا يصوصارين صحيحة ابن ماجه يا أبو داود با هدي عن عيد أمري لها عيد كلا إني أسجوده وحن أمري لها قفك الضمر زوج كذا إني أسجوده حق وكله وين كيس درادي يصاوت الله يا النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعكم إذا حقوق ذا إني قبضوا نك يا زوج كذا أطيعه وحي أمره وأمر كيسة إني طاعة لقد دونيو إني طاعة تامة لتماضه inkastoo taacadaasi ay qaydan tahay oo wixii aan macsiyo ahayn ay ku qaydantay. rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu timid qof dumara iyadoo muraad iyo xaajo u soo qasaday rasuulka sallallahu alayhi wasallam aydan ay kala hayd oo arrimo markaa haystin wax kala qabto u baahnayd
markii muraadkeedii rasuulku wuxuu u qabtay ayuu rasuulku su'aal weydiiyey salawaatullaahi wasalaamu calayh, adaatu zawjin anti, adigu ma tahay afo ma tahay ama oori la qabo reer leh oo xaasa ma tahay? markaasaa waxay tidhi haa. ninkaaga xaggaad ka joogtaa buu nebigu sal alla alay wasalam, qaab mucaamilka qoyska iyo siday ula nooshahay zawjkeeda. markaasee waxay tidhi maa aaluuhu ilaa maa cajastu canhu, kama gaabiyo kuma gabood falo rasuulka ilaahayo wixii aan ka caajiso taagu waaye mooyaane waa dadaalaa. nebigu sal alla alay wasalam wuxuu ku yidhi ninkaaga meesha aad ka joogto u fiirso, isagaa jannadaadii ah ama naartaadii ah. jannadaadii weeye haddii aad awaamirta iyo daacada sharcigu ku amray ninkaaga adeecdo oo qof wanaagsan oo baariyada aad noqoto, jannaad ku helaysaa. sababaha jannada lagu galay ka midta. haddii aad caasiso oo aad si xun ula noolaato oo dhibto, waxyaabaha ka iman karaya inaad naar ku mudato bay arrintaasi keenaysa. xadiiska nasa'i iyo keyrkiiba ay soo saareen saxiixa ah. rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxaa la su'aalay dumarka yaa u khayr badan. markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam, midda zawjkeeda adeecda marka uu amro, marka uu eegana uu ku farxayo, marka uu maqan yahayna nafteeda iyo maalkiisa ilaalisa buu nebigu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh. daacada zawjka ay gabadhu ninkeeda adeecayso waxay ku qaydan tahay macruuf, wixii munkar iyo macsiyaa kuma adeecayso. oo nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam, laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq. qof makhluuqa lagu adeeci maayo ilaahay subxaanahu watacaala wax in lagu caasiyo keeni karaya. sidaa awgeed hadduu yidhaahdo ma xijaaban kartid, haddii uu yidhaahdo ma tukan kartid, haddii uu iyadoo xayd qabta u baahdo uu yidhaahdo aan wuxuu ninku reerkiisa u doonto aan kuu doonto, ma ka yeelayso waxaasoo dhan. waayo waa wax macsiyo ah waxa uu ka dalbayo, laakiin wixii macruufka ahaa ayaa shareecadu ay tilmaamaysaa. saasaa nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu tilmaamay. gabadhu ninkeeda haddii ay ku caasisana naar bay ku gelaysaa waxyaabaha inay ku ateecdo shareecadu ay amartay. nebigu sal alla alay wasalam habeenkii la guuraysiiyey waxaan arkay buu yidhi naarta dadka u faraha badan dumarka inay yihiin. rasuulka sal alla alay wasalam waa la su'aalay, lima yaa rasuula allah? qaala bikufrihinna, waa dafiraadooda iyo ka abaalka dhacooda ay ka abaalka dhacaan raggooda. qiila yakfurna billaah, ma ilaahay bay ku kufrinayaan? qaala yakfurna alcashiir wayakfurna alixsaan. raggooday ka abaalka dhacayaan oo abaalkii iyo ixsaankii u galay bay ka abaalka dhacayaan. low axsanta ilaa ixdaahunna dahr uma ra'ayta minka shay-an qaalat maa ra'aytu minka khayran qad. haddii aad zaman dheer ninku xaaskiisa u samafalo oo ay maalin wuxuun qoonsato, waxaa laga yaabaa dumarka qaar inay yidhaahdaan weligayba wax khayra kaama arag. taasaa abaalka dhacaas ayaa cadaab ku mutaysan kartaa gabadhu. taasaa nebigu tilmaamaya sala allahu calayhi waaalihi wasalam. waxaa la rabaa gabadha inay aqalkeeda ku sugnaato oo aanay ilaa biidnih, ninka idinkiisa mooye aqalka aanay wax kale uga bixin. waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa. aqalka ku sugnaada ayuu ilaahay leeyahy subxaanahu watacala, aqaladiina ku sugnaada. ha u dibad bixin oo ismuujinina sida jaahiliyadii hore oo kale dhaqankoodu ahaa. sidaa awgeed gabadhu aqalkeeda inay ku sugnaato ilaa wax daruuro ahoo ay ka maarmi weydo ninkeeduna la ogaado ayaa muhim ah. laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna. sidaa awgeed baa waxaa la doonayaa gabadhu inay aqalkeeda u badnaato, halkaasayna ku xafidan tahay oo ay shareecadu ku ilaalisay. sheekhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa fataawaha wuxuu leeyahay, laa yaxilu lizawjatin an takhruja min beytiha ila biidnihi, waإida kharajat min beyti zawjiha bigayri idnihi kanat naajisatan caasiyatan lilahi warasuulih wamustaxiqatan lilcuquuba. uma xalaal aha qofka dumar ee afada iyo ooridu inay aqalka ninkeeda ka baxdo idankiisa la'aantii. haddii ay idanka zawjkeeda la'aantii aqalkii ka baxdo oo tamashle iyo waxaan muhiim ahayn oo aan dan ahayn oo isaguna la ogeyn ay u baxdo, caasiyad naashisaa bay noqonaysaa. ilahay rasuulkiisa ku caasisay, ciqaab inay mutaysato alle agtiya baa laga yaabaa. gabadhu marka ninkeeda haddii ay weydiisato inay u baxdo masaajidka ama tacliin soo dhigato, inuu u fasaxu leeyahy inuu ka manciyo ma aha haddii fitna laga aaminiya. rasuulku sal alla alay wasalam waa tii uu tilmaamay haddii ay qofka dumar ee oorida ahay ninkeeda idan weydiisato masaajidka inay qabato
yaanu u diidin buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh. waa haddii fitno iyo mashaakil laga aamin yahay oo dariiqay maraysa aamin yahay oo barnaamijkaasi waxaa weye wax dhibaato ah iyada iyo nafteedu aanay ku imanaynin iyo diinteeda. xuquuqda waxaa ka mid a inay ateecdo markii ay gogasha uu ninkeeda ugu yeedho xilligu u baahdo inaanay diidin. nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam idaa daca arajulu zawjatahu lixaajatihi falta'tih wain kaanat cala tannuur. ninku hadduu afadiisa u yeedho oo uu wixii ninku reerkiisa uga baahnaa ugu yeedho ha u timaado yaanay diidin. xitaa haddii ay dherigii karinayso oo ay kitchenkii ku jirto, haddii ay gabadhu ninkeedii diido inay firaashkii ugu timaado iyadoo wax cudurdaaroo dee ama xisi ah ama sharci aanu jirin ama xanuun ay tabanaysa aanu jirin ama aanay dee wax kaleba jirin, hadday diido waxa weeye rasuulku wuxuu tilmaamay sal allahu alay wasalam lacanatha almalaa'ikatu xataa tusbix. malaa'igtaa nacdalaysa ilaa inta waagu u beriyo. waxaa ka mid ah in xuquuqdu ku leeyahay anlaa ta'danna liaxadin an yadkhula beytahu ilaa biidnih. inaanay u fasixin aqalkiisa cid aan idankiisa ku soo gelin, idankiisa mooyaane cid kale inaanay aqalka u fasixin inay soo gasho. nebigu sal allahu alay wasalam waa tii uu xadiidkii saxiixa ahaa uu tilmaamay qofka dumarihii xuquuqda ninkeedu ku leeyahay xadiiskii xajatulwadaac khudbadiisii inaanay u fasixin aqalka ninkeeda ciduu isagu raalli ka yahay mooyaane. arrintaa waxay ahlu cilmigu ku xambaareen waxa weeyaan qofka dumarihii cidda rag iyo dumar cidduu doono ha noqdee qofkaan raalli ka ahayn ninkeedu aqalkiisa inuu yimaado xaquma laha inay soo geliso. ciddii uu isagu ay og tahay inuu raalli ka yahay rag iyo dumarna oo wax dhibaato aanay ku jirin inay u ogolaato wax dhibaato iyaduna ma laha. waxaa ka mid a xuquuqda uu ku leeyahay inaanay soon sunna a soomin isaga idankiisa la'aantii haddii uu joogo. laa yaxilu limra'atin an tasuuma wazawjuha shaahidun ila biidnih walaa ta'danna fii beytihi ila biidnih. xadiiska bukhaari iyo keyrkiiba ay soo saareen. uma banaana qofka dumara inay soon sunna a soonto ninkeedii oo jooga inay ogeysiiso mooyaane. nebigu tilmaamaya sal allahu alay wasalam. xuquuqda waxaa ka mid ah inaanay maalkiisa bixin isaga idankiisa iyo ogeysiintiisa la'aantii. laa tunfiqu imra'atun shay'an min beyti zawjiha ila biidni zawjiha. xadiiska abi daawuud. ma bixinayso qofka dumara yaanay bixin ninkeeda maalkiisa aqalka yaani hantidiisa ka bixinin ama hantida uu leeyahayba ilaa isagu inuu idmo oo la og yahay mooyaane. waxaa xuquuqda ka mid a inay ubadkiisa iyo isaga iyo aqalkaba u khidmayso oo ay ka shaqayso. nebiga sal allahu alay wasalam gabadhiisii faatima radi allahu tacala canha way khidmayn jirtay oo gurigeeda ka shaqayn jirtay. waatay maalintii dambe u timi ay ti rasuulka ilaahay oo sidii aan uga shaqaynayay aqalka oo raashinkii u daqiijinayay gacmihii way baxeen. calina siduu biyaha usoo dhaaminayay dhabarkii oo ku shaqaynayay waxa weye athar badan baa dhabarkiisii iyo raad badan baa wuxuu xamaalayay dhabarkiisii saameeyey. waxaad khaadim baan kuu soo doontay rasuulka ilaahayo. rasuulku markaa sal allahu alay wasallam khaadim ma joogin agtiisa markaa uu siiyo. alaa adullukumaa calaa khayrin mima sa'altuma. wax ka khayr badan ma idin tusaa wixii aad i weydiiseen. idaa akhadtumaa fii madaajicikuma markaad meeshaad jiifsanaysaan timaadaan aw ataytumaa ilaa meeshaad ama aad habeenka ku hoyanayseen gogashii ay firaashkii aad timaadaan 33 jeer subxaan allah 33 jeer alxamdu lilah 33 jeer allahu akbar. adkaartaasuu nabigu u sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh. asmaa bint abi bakar waxay tihi kuntu akhdumu zubayr ibn alcawaam oo zawjkeedii ahaa waan u shaqayn jiray oo xitaa beerta ay kasoo shaqayn jirtay. calafka farskiisa iyo ama awrkiisa bay soo qaadi jirtay. aqalkay ka shaqayn jirtay. biyahay soo qaadi jirtay. marka gabadhu inay aqalka ninkeeda ka shaqayso oo ubadka ka shaqayso waxyaabaha xuquuqda ah ee lagu leeyahay ayay ka mid tahay. xadiiska jaabir ee duruustani hore ku jiray markii radi allahu tacaala canhu aabihii dhintay hablo badanna oo aabihii 7 ama 9 gabdhood walaalihii ah uu aabihii ka dhintay waatuu gabadhii carmalkayd guursaday uu yidhi inay u shaqayso u khidmayso ayaan rasuulka ilaahayow ugu talagalay gabadha. markuu rasuulku su'aalay carmal baad guursatay mise waxaad guursatay bikaaraad guursatay nabigu sal allahu alay wasallam u weydiiyey. inay xuquuqda lagu leeyahay waxaa ka mid a inay xafido sharafteeda awlaadiisa iyo maalkiisa ilaaliso. aayaddaynu ku bilownay waxaa ka mid a xuquuqda lagu leeyahay gabadha inay ninkeeda u mahadnaqdo oo fadliga iyo wanaagga iyo mucaasharada wanaagsan ee kula mucaamalayo inay uga mahad celiso oo si fiican. mahad celintu maaha qalbiga iyo carabka keliye macaamil wanaagsan way iyaduna kula mucaamalooto. rasuulku wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam laa yanduru allahu ila imra'atin laa tashkuru lizawjiha wahiya laa tastagni canhu. xadiiska nasa'i saxiixa ah. yacni
ilaahay aakhiro subxaanahu watacaala in naxariis leh kuma eegayo qofka dumare ee ninkeeda aan maxaan ku idhaahdaa u mahad celinayn qaab dhaqankay ula macaamilayso tacaamulkeeda aan uga mahad si fiican ula tacaamulaynin oo aan u mahad celinaynin iyadoo haddana aan ka kaaftoomayno nolosheedii oo dhan bacdallaahi isaga ay ku tiirsan tahay waxaa ka mid a inay gabadhu ninkeeda isu qurxiso ayaa ka mid a oo u xaragooto u labisato mushkiladda mujtamaca soomaaliga haysta waxaa ka mid a gabadhu toobka ama diraca ay xiran tahay shiidka ee kula jirto jikada iyo kaga shaqaynayso unbay maanta oo dhan odayga la ag joogtaa ilaa man raxima rabbi isaguna markuu aqalka tago dharka wacanna magaalada u xidhaa garanka dhammaaday iyo macaguusta dhammaatu soo xidhanaya markuu aqalka tago dee labaduu way isku waxaysan yihiin marka iyadoo aroos qabanayso ama cid kale qabanaysa laga yaaba in si wacan u xaragooto u labisato waxay ka sheekeeyaan nin baa dhintay bay yidhaahdeen oo markaasaa walaalkii baa dumaalay xaaskiisii dabeetana nin miyiyo meelaha ka yimid waa ninkan reer magaalo reerkani bay ahaayeen dadku inay isla fahmaan noloshu muhiimadda ay leedahay gabadhii dee nin reer magaalahoo ay aada isula haysteen nolosha ayaa alla ka oofsaday dabeetana waxaa dhacday in uu ninkii gabadhii markay cuntada dadka caruurta siiso isaga way usoo dhigtaayoo iyadu dee ma cuntaysay way la cuntaysaa markay dee la hadlaysana xabiibi bay ugu yeedhaa maantii dambe u yeer wuxuu gabadh yahay 3 xal maad iga dayn 3 xal way dhibaysaa meeshan ka iman lagama yaqaan maad iga dayn aniga maxamed cali baa la yiraahday xabiibi la ima yiraahday iga dah magaca maxamed cali iga igu yeer magaca aniga aad igu yeerso garan maayo cuntadanna aniguba nin weyn baan ahayo waan hambaynayaa aad gacanta ila gelinayso iga dah qodobka saddexaadna ogasha markaan imaado dee salsalaaxan gacanta iga dah salaaxayso aniga waxa weeyaan iska godlan doona iga dah marka tacaamulka in la isla fahmo oo reerku waa fiican tahay oo gabadhu ninkeeda isu qurxiso isaguna uu reerkiisa u labisto oo dhar wacan xidho oo garan daldaloolay macaws xun aanu xidhan iyaduna mara wacan ay xidhato saas weey waxa kamid ah waa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dumarka waxa u khayr badan midda markaad eegto aad ku farxayso waxa kamid ah waxyaabaha xuquuqda ee gabadha laga rabo haddii ninka ay ka jeebroon tahay oo reerka dee ay ku biiriso masaariifta la xoojiso inaanay abaal iyo galad sheegan sadaqadu saanay uga xumaanin yaa ayuha alladina aamanu laa tubdilu sadaqaatikum bilmanni waladha ba alayhi subhanahu wa ta'ala inaan marka horso aniga kuma biilo anaga kirada ka bixino saariifta ma anaga ku siinay maxad sheegaysaayo inaanay gabadhu dee ku abaal sheegan hadday ninka ka jeebroon tahay oo ay maartay aqalka noloshiisa wax ka qabanayso inay gabadhu haddii ninku hanti yarow yahay inay waxa uu haysto ay iimaansadaan oo ku qancaan iimaan alla uur buuxiya intooda yar inay ku qancaan waxa alla siiyay oo aanay ku kalifin wax aan awoodiisa ahayn liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أبو عليه سبحانه وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا وحكم إذا قضبضا حقوق الإسكولية هي إن أنا قبضوا صمين نينك وحدي بيا أما كعريسينية النبي يقول صلى الله عليه وسلم قف دومرة ما دبتو زوج كذا هدي أي دبتو دونك يكون دبتو سلانتي سي حور العين آخره ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu rasuulkiisa inoo ka warramay inay oranayso ha dhibin ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dagaaliye ha dhibin agtaada martibuu ku yahay wuu nooga kaa iman doonaa mar dhow wuu kaa iman doonaaye waxaa ka mid a inay hagaajiso mucaamalada labadiisa waalid sodoga iyo sodohda ee ninkan xaggiisa ka soo jeeda inay hagaajiso oo xiriidhiso oo soo dhoweyso oo dhaqaalayso oo gurigeeda ay ku nastaan oo islaantii hadday guriga joogto magaalada la keeno u xidhnayso oo maaragtay u hagaajiso odaygii sidoo kale aanay dhibsan inay ku dadaasho inay ninkeeda la noolaato oo aanay haddii wax yar yimaadaanba aanay la soo bixin kaarhkii ahaa warqadayda isii waana shayga ugu weyne dumarku ay maaragtay ku dagaalamaan oo ninka kula dagaalamaan inaanay marba warqada isiida iska dayso oo watuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ayuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq min ghayri ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul janna inay marka ay arinta iska ilaaliso si wacan ninka ula noolaato ay ku dadaasho waxyaabaha u dambeeya qodobka 16aad in hadii ninkii alla oofsado inay isu basaasiso 4 bilood iyo 10 cisho ayaa sharcigu tilmaamay xaq ninka lagu leeyahay waxa kamid ah si wacan inuu gabadha ula mucaamaloodo oo ihsaan saaxiibnimo wanaagsan gabadhi kula dhaqmo oo dhibka ka daayo oo xuquuqdeeda aanu meermeerin oo aanu caayino aflagaadeenin oo gabadhii waji furfurnaan iyo qosol iyo naxariis iyo soo dhaweyn iyo bashaashad oo gabadhii kula mucaamaloodo
walahunna wacaashiruuhunna bilmacruuf aayaddaas wax weyn koobsatay si macruuf dumarka shay wanaagiisa la yaqaano dumarkii kula dhaqma alla leeyahy subxaanahu watacaala walahunna mithlu aladii calayhinna bilmacruuf xaqa gabadha ay kugu leedahay adna mid la miday aad ku leedahay bay iyaduna kugu leedahay allah uga cabso subxaanahu watacaala ninka gobta ahi sharafta lehi waa ninka reerkiisa si wacan ula dhaqma khayrukum liahli wa ana khayrukum liahli xadiiska tirmidi ee saxiixa ah ninka idinku khayr badan idinku fiican idinku gobaysan waa ninka reerkiisa u wanaagsan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan dhaqaalaynta iyo ka warqabka ixsaanka xaaskiisa uu ninku u ixsaan falo oo hagaajiyo o dhaqaaleeyo ubadkiisa min kamaali liimaan bay ka mid tahay akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa wa khiyaarukum linisaa'ihim wuxuu nebigu leh sal lla alay slam mu'miniinta qofka iimaankiisu ugu kaamilsan yahay waa ka ugu akhlaaqda wanaagsan ninka idinku khiyaarsan idinku gobaysan waa kuwa dumarkooda iyo ooriyahooda iyo aqalkooda ugu wanaagsan buu nebigu yiri sal lla alay slam nafaqadii iyo masaariiftii xasba taaqa ninku inuu reerkiisa masruufo wixii alla uu siiyey reerka aanu baktiin oo hugooda iyo hungurigooda iyo hooygooda hagaajiyo ayaa ninkii laga raba wacala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf liyunfiq duu sacatin min sacatih adiladaasoo dhan way tilmaamaysaa rasuulku sal alla alay wasalam xadiidkii mucaawiyata alqushayri radia allahu tacaala canhu markii uu yidhi yaa rasuula allahi maa xaqu zawjati axadina calayh waa maxay xaqa uu qofka iyo xaaskiisa maa xaqu zawjati axadina calayh qofka iyo xaaskiisu xaqa ay ku leedahay waa max an tuطcimaha idaa طacimta inaad quudiso markaad quudanayso micnaheedu maaha dee haddaad maqaaxida koob shaha kaga dhufato koob shaha usii qaad islaantii yani waxaa laga adna aadan meelaha dee aadan dhergin oo hodheelada marba mid u dhuuman reerkuna aanu baktiin dhaqaalee reerkii oo hugooda iyo hungurigooda iyo hooygooda hagaaji wataksuuha ida iktasayt oo gabadhii iyo xaaskaagii waxa weye arad bixi markaad arar baxdo walaa tadrib ilwajha wejiga gabadha waxa kaga dhufan haddii aad dhacdo inaad gacan qaadaba wejiga waxa kaga dhufan walaa tuqabix ha caayinoo gabadhi ha xumayn walaa tahjur ila fi lbeyt haddii aad yaro cadhooto aqalka meelaan hodheelada iyo halkaa ha qabane aqalka meelaan ahayn ha aadin nebigu sal lay slm wuxuu tilmaamay gabdhaha xarigaasaad ku haysataan meherka ah aad ku guursateen baad ku haysataan ood ku banaysateen sidaa awgeed in marka la ilaaliyo oo loo dadaalo in nafaqada iyo masruufka loogu dadaalo in loo naxariisto oo turaal badan iyo dulqaad badan wax badan indhaha laga laabo nin sheekha salafkii ka mid ah ayaa ardaygiisii u soo galay markaas wuxuu aad ula yaabay ninkii sheekha ahaa sida uu ugu khidmaynayo baari ugu yahay inankiisa markaasuu sheekhu eego wuxuu yidhi ma waxaad la yaaban tahay inankan baarinimadiisa kuwa kalea kaasii baarisan ee jooga ayuu u tilmaamay ninkii sheekha ahaa markaasuu iswaraysteen warkii waxaa ka soo baxay 20 sannadood oo hooyadii aan la noolaa oo macaasharadeedu aad igu adkayd waan u sabrayey ilaahay baa kadib baarinimo xoog leh iyo daaco fiican bay la timi ilaahay baa ubadka ii geliyey marka islaantaadii u naxariiso oo u tur oo u dulqaado haddaadan iyada u dulqaadan yaad u dulqaadanaysa hana ka warsheekoon oo u sabir oo u dulqaado nebigu sal allahu alayh wasalam aad iyo aad buu maaragtay ugu dulqaadan jiray reerihiisa u dhaqaalayn jiray heeraha in loo dulqaato oo loo dhaqaaleeyo oo gabadha warkeeda la dhegaysto oo xilli loo sheekeeyo la sameeyo oo wax badan oo ka dhacaya waa liska indha tiraa haddaad tiraahdo qodob waliba meeshiisa ku qabo aqal kuu dhisnaan maayo in maaragtay la hagaajiyo oo reerkii loo dulqaato oo ninku reerkiisa la caweeyo oo u sheekeeyo oo wakti uu siiyo intuu maqaaxiyaha iyo meel kale ku lumin lahaa inaha aan ku soo ururiyo waktigaa aad ii guraya ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu watacaala inuu camalkeena khaalisan liwajhi lkariim allah uu ka dhigo inuu alla ina ku anfaco subxaanahu watacaala ajar iyo xasanaadna ina ka siiya fi lxayaati wabacda almamaat وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده وخليله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي سبحانه وتعالى خير بدنا سيو الشيخ محمود موضوع كسابسا حق يسكليهين لما أنه يلا بدأ يسقبا ورنتي آدي بلشد وقبها انتهي إن لو عديو runtii si fiican buu shiikhu usoo koobay iyadoo waqtigu uu ciriiri yahay oo waqtiga xalaqadan loogu talagalay ama fadhigan uu yahay waqti kooban xuquuqda aadamuhu isku leeyihiin waxay ka mid tahay caddaynta la caddaynaya maxaasinta iyo wanaagga sharciga alle subxaanahu watacaala uu leeyahay basharkana uu leeyahay
نبينا صلى الله عليه وسلم وحوت المام إن الله أعطى كل ذي حق حقه إلهي سبحانه وتعالى متكستو أو حق متيستي حقي سيوسيي أو أقيحي ولو بيامي وحكلو النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو الدرداء سلمان الفارسي قصة الأحمرتي والنبي صلى الله عليه وسلم أقري أو قرال نقونيسا إنه أبو يري سلمان إن لنفسك عليك حقا نفتعض حق أيك وقول هذا هاي iyo waxyaabihii kale uu sheegay ehelkaagu xaq buu ku leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam uu qiray oo wuxuu yiri sadaqa salman run buu sheegay hadaba xuquuqda la isku leeyahay gaar ahaan labada lamaanuhu isku leeyihiin xuquuq dhinac walba ka siman ma aha sharciga alle subhanahu wa ta'ala wax musaawaad leeyahay ma yaqaano laakiin wuxuu yaqaan cadli cadligu waxa weeye qof kastaaba meesha u haboona iyo wixii uu mutaystay ee isaga u gaarka ahaa in loo sugo taasa sharcigu marka ilaaliyay cadligu amray wa idha qultum fa'dilu iyo aayaadka kale lamida ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala cadliga ku cadeeyay dhulmigana alle subhanahu wa ta'ala wuu xarimay wala yadhlimu rabbuka ahada inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama marka sharcigu wuxuu cadeeyay inaan cidna la dhulmin oo cadaalad loo sameeyo marka ragga iyo dumarka ama labada isqaba xuquuq ka wada dhaxaysa oo labadooda mid walba laga doonayo inuu la yimaadana way jirtaa xaq mid walba u gaara oo ka kale uu ku leeyahay oo ka kale aanu xaq u lahayn inuu ka kale ka dalbado ayaa iyaduna jirta sheekhu uu tilmaamay meel wax lagaga daro badan sheekhu kama tagin waxaan ishaari lahaa xuquuqda badanaaba ragga lagu leeyahay ee ay dayacaan waxa kamida in cadli loo sameeyo labada dumarka ama saddexda ama afarta dumarka la wada qabo waxa in badan dhacda raggu inay markay gabadh labaad guursadaan ama mid saddexaad ay guursadaan xiisaha bilaadan iyo bilaadanka marba wixii cusub ee dambe jecel iyadoo ay ka duulaya inay waxa weeyaan dayacaan ubadkii ama oorida hore xaqoodii ay ku tuntaan ama ay waxa meel kaga dhacaan arrinkaasina waa arrin muharram ah maalinta qiyaamana waciid aad iyo adag ayaa sugaya qofka sidaa sameeya ee u kala iisha labadiisii dumarka ah ama saddexdiisii xaas u kala iisha xuquuqdii ay lahaayeen ee la doonayay inuu wada gudo midna wax siiya midna u diida xuquuqdii wax kamida waciid adag baa u soo arooray ilaahayna subhanahu wa ta'ala in cadli loo sameeyo alla ayaa la isaaray cadligana marka laba dumar ama saddex dumar la wada qabo asaas waxa uu ah mabiidka ama gogosha iyo qofku inuu guriga u soo hoydo waa xaq ay leeyihiin oo gabar kasta ama saddex ama laba ha noqdaan la wada mid waliba habeenkeeda waa inaanu ka dhixin oo tii kale aanu u dusin habeenka ay lahayd aanu tii kala siinin ta kalena waa nafaqada oo waliba ku salaysan cadligoo keenaya mid walba wixii u munaasiba oo waxa weeyaan gabadhii 5 caruur haysatay yatii ilma kaliya haysatay waxa weeyde ma sinaanayaan xaqi nafaqada marka waa inuu nafaqa mid walba u munaasiba iyadana uu siiyo labada qodob ayaa waxa weey asaas u ah cadaalada loo sameeyo dumarka waxa kale oo iyadana soo gudagalaysa de marka uu safrayo oo hadii uu u baahdo ama caadadiisa ay tahay inay dumarkiisa qaar la safraan inuu waxa weey markaana uu khiyaar geliyo ama qurca u sameeyo ama iyagu ayada isu tanaasulaan ay sax tahay ayada isu tanaasul waayaan inuu waxa weey qurca iyo wax lamida u sameeyo marka xuquuqdaas faraha badan ay isku leeyihiin sheekhu tilmaamay waxay kamid tahay ومحاسنته شريعة على أن لجاه لين دستور دساتير تبشر كدكتين أما قوانين تدكتين من أن لجاه لينين إلهي سبحانه وتعالى وحويدي سنة يا شيخ كلمة داود سوتشي دي إنه إلهي سبحانه وتعالى إنه أنفعه إنه يعدك الصعود كان وقاريه إن إلهي سبحانه وتعالى وكو أنفعه إلهي إنه نقدر وقال كنت حقوق دسارا الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.